daawade ku soo dhawow barnaamij gaar ah oo idinka diyaarinay heshiiska walaalaha khaliijku muxuu uga dhigan yahay gobolka Geeska Afrika. warbixintani waxa qoray Salebaan Sahal Jaamac waxaana idin soo jeedin doona anigoo ah Maxamed Aadan Jirir. lixda dal ku bahoobay magaca iskaashiga walaalaha khaliijka iyo dalka Masar ayaa saxeexay baaqa caluula kaasi oo khatar iyo faa'iido ba u leh dalal badan isla markaana tuurta ku sita dana siyaasadeed oo ku soo kordha caalamka iyo gobolka Geeska Afrika. gacmahan masaabiirta leh ee la ismarmariyay heshiiska khaliijku ma aha dhamaadka khilaafka carabta. jamhuuriyadda Iiraan iyo dawladda Sacuudigu wali way soo fadhiyaan waxayna ku hirdamayaan dalka Yemen. dawladaha khaliijku hore waxa ay u ahaayeen 7 dal balse burburkii Ciraaq kadib waxay ku soo gororeen 6 dal oo kala ah Sacuudi Arabiya, Qatar, Bahrain, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo Kuwait. waxay ku abtirsadaan carabta waa dalal iskaga mid ah dhaqanka luqadda iyo diintaba. badankoodu waxay wadaagaan xuduud dhuleed mid cir iyo mid badeed si kale hadii loo dhigo waa shanta Soomaaliyeed oo 5 dawladood oo madax banaan noqda kadibna sameeysta ururka walaalaha Soomaalida laguna soo dacadhabo jasiiradda Suqadara ee Yemen u rahman. sanadka 2022 magaalada waqooyiga ku taala ee Caluula ayaa lagu qabtay shirki 14aad ee khaliijka oo 3 sano u dambeeyay. shirkaasi aanu ka qayb galin amiirka dalka Qatar oo hangool la iskaga hayay balse inta dawladda Qatar gaaf wareegaysay misana kulankaasi uu qabsoomayay ilaa intii uu socday khilaafku. waxaa dhacday dhowr jeer in amiirka Qatar wakiishay wafdi hoose oo dalkiisa ku metelayay shirka walaalaha khaliijka. haddaba shirka 14aad ee iskaashiga 6da khaliijka maxaa ka soo baxay? shirka waxaa ka soo baxay in la heshiiyay oo kaliya dibna boorka looga jafo iskaashigii khaliijka hore uga dhaxeeyay. heshiiska iskaashi ee walaalaha khaliijka iyo xiriirka soo roonaaday ee Qatar iyo dalalka kale ee khaliijku kama dhigna inuu dhamaaday tartankii u dhaxeeyay ee dhinaca ganacsiga iyo siyaasadda sababtoo ah wali isku dan lama noqon. aad bay u adag tahay in dalal kala duwani wax kasta isku dan ka noqdaan. waxaase hubaala in Qatar faraha ka qaaday waxyaalo badan sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiguna wuxuu dalab ka tuuriyay dana caalwa oo dani ku soo duleysay. haddii aan dib ugu yara noqdo khilaafka dalalka khaliijku waxa uu ka istaarmay tuhun la daniyay dawladda Qatar oo loo subir saaray inay la gala tahay dawladda Iiraan. waxaa si gaar ah loogu qabtay warbaahinta Al Jazeera oo qoyska boqortooyada Qatar dambaabo kadib markii boqortooyada Sacuudigu ku eedeysay inay duqeeyeen cusbitaalo, dugsiyo waxbarasho iyo meelaha ay joogeen caruur iyo dad aan hubsidan. xudunta khilaafka khaliijku wuxuu ahaa dagaalka Yemen oo ka socda oo ay ku hirdamayeen xulafada Sacuudiga iyo Iiraan oo midba kan kale carinayay kuwaas oo la kala safnaa dagaalyahanada Sunniga iyo Shiicada ceelka Yemeneed isku basbeelay. isafgaran waagani sidiisa ayuu taagan yahay ilaa haddana xal muuqda lagama gaadhin balse waa maxay danta isu soo celisay isuna soo garbaduubtay duulkan marna isa sanifaya marna isu soo muusoonaya. wiilasha khaliijku waxa ay ku qasbanaadeen inay heshiiyaan sababtoo ah doorashada madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden waxa ay jiho ka duwantii madaxweyne Trump u qaadi doonta siyaasadda dibadda iyo ammaanka ee Mareykanka. Joe Biden oo la filayo inuu madaxweynaha la wareego waxa uu soo celin doonaa siyaasadda madaxweyne Obama ku maamulaya bariga dhexe xilligiisii. sidaas darteed isbeddelka Mareykanka ka dhacay ayaa saameyn xooggan ku leh heshiiska shoodhayaasha khaliijka. xisbiga dimuqraadiga ee ku guuleystay waxay dib u soo celin doontaa wadahadaladii Iiraan iyo heshiiskii uu saxeexay madaxweyne Obama ee ku saabsanaa nukliyeerka Iiraan. waana suurtagal in cunaqabataynta Trump saaray Iiraan laga qaado dawladda Iiraan oo Washington cunaha sii deyso Tehran. sida ballanqaadku yahay Joe Biden maalinta koowaad ee xukunkiisa waxa uu dib u soo fadhi doonaa heshiiska ilaalinta deegaanka ee Paris lagu saxeexay oo madaxweyne Trump hadan ka tuuray waqtigiisii. arrintaasi waxay saameyn ku yeelanaysaa dalalka shidaalka soo saara iyo kuwa warshadaha leh. heshiiska tolka khaliijka waxa sidoo kale markii ugu horeysay qayb ka ah dalka Masar oo aan iyadu ku jirin dalalka ilmada khaliijka balse kamid ah saxiixayaasha heshiiska kadib markii ay daaqada ka soo gashay. sida ku cad heshiiska gacanka khaliijka oo Qatar ka mid tahay waxay isgarab taagi doonaan Masar iyagoo ka kor joogteen doona ilaalinta biyaha webiga Niil oo Itoobiya iskaga cuna duubnaayeen iyagoo isku hor fadhiya habka qaybsiga biyaha webiga.
qodob dhan oo heshiiskan ka mid ah ayaa sheegaya in wadamada walaalaha khaliijka ay ilaalin doonaan dhammaan danaha carabta oo Masar ku jirto. sidaasi darteed Masar halka iyada waxay ka heshay vakansi siyaasadeed oo weyn. haddaba maxaa la isla qaatay, maxaase lagu kala kacay? dowladaha khaliijku indhaha ayay ka laliyeen, kamana heshiin baqdin ay ka qabaan fiirana uma yeelan Turkiga oo Qatar isgarab taagay xilligii godoominta lala dultaagnaa. waxaase moodaa in Iiraan dhinac laga wada mari doono, balse lagama heshiin isku mowqifna lagama yeelan arrinta Yemen. qodobka ugu muhiimsan ee heshiisku waxa uu dhigan yahay sidan: si loo gaadho nabadgelyo, xasilooni iyo barwaaqo gobolka dalalka khaliijka waxay dalalka xubnaha ka ah shirkani u wada shaqaynayaan iyadoo midba midka kale dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo caawimada isla garab taagan yahay. in khaliijku ku hadlo luqad diblomaasiyad oo midaysan arrin xoogeeda leh ayay noqotay, waxaana tallaabadii ugu horeysay lagu bogaadiyey hogaamintii boqortooyada Sacuudiga ee golaha G20 ee sanadkan. waxaa la isla meel dhigay in dib loo soo dardargeliyo aragtidii boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ku soo bandhigay shirkii 2015 ee ahayd in la sameeyo difaac ciidan oo midaysan, kaasi oo gaar ka qaban doona danaha wadamada khaliijka iyo dalalkoodaba. walaalaha khaliijku waxay ku heshiiyeen inay ka midoobaan in siyaasadda arrimaha dibadda mid mustaqbalka dhow iyo in la sameeyo isku dhaf ciidan amni oo xoog badan, kaasi oo leh hoggaan sare iyo guddiga difaaca amniga khaliijka oo maamuli doona ciidanka dhaqaalihiisa, qalabkiisa iyo qorshayaashiisaba. waxaan meesha ka marnayn in lala sameeyo xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee wadamada khaliijka, suuqa guud ee khaliijka, iyo in si wadajira loo maalgashado mashaariicda dhinacyada dhaqaalaha. muwaadiniinta 6 dal ee khaliijka oo Masarna ku jirto waa la isu furay, waana iska wada taxtaxaashi doonaan bilaa xuduud, waxaana loogu bushaareeyay in qof kasta uu meesha uu doono buul ka yagleelan karo, maal gashan karo magaaladii doono, sidoo kalena caafimaad ugu boqoli karo iyo hadiiba uu ka fursan waayo adeeg waxbarasho. Masar iyo heshiiska dalalka khaliijka maxaa iska soo galay? sababta Masar daaqada uga soo gashay qayb nooga noqotay heshiiska isla markaana albaabka looga xidhay Suudaan ee ay uga maqan tahay waa arrin isweydiin leh. waxaase jirta in Masar iyo Sacuudigu wadaan qorshe la xiriira marinka badda cas iyo gacanka cadmeed, kaasi oo danaha Sacuudiga iyo Masar aad isugu soo dhaweeyay. Suudaan sababta aan loo marti qaadin waxay noqon kartaa heshiiska dhawaan dhex maray Suudaan iyo Ruushka, taasina waxay u soo waldaamisay iyadoo Mareykanka laga baqayo in cidla waaqla lagaga cararo xukuumadda Cabdalla Xamduug. waa arrinta ugu dhow laakiin lama xaqiijin karo. Masar oo taariikh u leh ka faa'iideysiga jaanisyada hortaada iyo inaan la dayacin fursadaha dahabiga heshiiskani dalalka khaliijka waxa ay ka heshay fursad cajiib ah, sababtoo ah ilaalinta biyaha webiga Niil. waxa uu noqon doonaa dan uu leeyahay dal carbeed, wuxuuna u xardhan yahay qodob heshiiska ka mid ah sidan: saxeexa Jamhuuriyadda Carabta ee Masar ee bayaanka Caluula wuxuu cadeynayaa xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Masar iyo dowladaha khaliijka, kaas oo qeexaya isku duwidda, iskaashiga iyo isdhexgalka dowladaha khaliijka, ujeedadooduna tahay xoojinta iyo u adeegidda danaha carabta. ugu dambeyn, heshiiskan cusub ee wadamada khaliijku wuxuu kula waantinayaa gobolka Geeska Afrika guuldarre iyo gacmo madow. heshiiskan waxa uu saameyn weyn ku yeelan doonaa Soomaalida iyo gobolka Geeska Afrika, sababtoo ah Masar iyo Sacuudigu waxay qorsheeyeen in la sameeyo ciidan ilaaliya marinka badda cas iyo gacanka cadmeed. waxa ay xulufaysan doonaan sidii dalalka khaliijka gacanka uga dhigi lahaayeen marin biyood gacanka cadmeed iyo badda cas ay leedahay. dhinaca kale, dowladda Itoobiya oo xulufaysanaysa urur goboleedka IGAD ayaa doonaysa inay biyo badeed meel ugu ka gaadho. si qorshahaasi uu hirgalo, waxay Itoobiya hormuud ka noqotay qorshaha IGAD Task Force on Red Sea and Gulf of Aden. qorshahan waa mid lid ku ah qorshaha Sacuudiga iyo Masar ay wataan. dowladaha Sacuudiga iyo Masar waxa ay wataan qorshe 1974 la sameeyay oo lagu aasaasay Baqa Regional Convention for the Conservation of the Red Sea. heshiiskaas waxaa xubno ka ahaa oo keliya wadamada badaha leh ee ku teersan badda cas, gacanka cadmeed iyo Baabilmandab. labadan qorshe waxaa suurtagal ah inuu guuleysto ka Mareykanka iyo Ingiriisku taageeraan. sidaasi darteed, walaalaha khaliijka iyo Masar waxay Mareykanka iyo Ingiriisku kula hadli doonaan cod midaysan. qorshaha Itoobiya ee IGAD Task Force Masar waxa ay ku bixin doontaa dadaal kasta si aanu u mara dhalin. waxaase isaguna ka hadalkiisa iyo saameyntiisa leh saldhigga Ruushku ka samaysanaya Suudaan iyo heshiiska Ruushka iyo Suudaan ee iskaashiga difaaca iyo amniga. daawadayaal, waa Maxamed Aadan Dirir oo idinkaga tegaya nabadino.